sida caadiga ah ee aan naqaano qofku markuu qof shay ku dhaliilayo shayga uu ku dhaliilaya waa inuu qofkaasi leeyahay shayga uu ku dhaliilaya waa inuu yahay wax jira oo dhab ah ciddu dhaliilaya waa inay yihiin cid aan fiicnayn ama dhaqan ka mid a dhaqanadiisu ay tahay mid aan wanaagsanayn laakiin waxaa jira dhaqanka ka duwan oo dadka doodaha lagaga roonaaday haddii ilaahay badankeeda leeyahay aqoonta xujajka iyo caddaymaha ay isticmaalaan waa dhaqan ah qofka aad qancin kari weydo qofka aad iskaga celin kari weydo aqoonta qofka aad iskaga celin kari weydo fikradda qofka aad iskaga celin kari weydo aragtida quman inaad dhaleecayso inaad wax aan jirin ku shaambadayso u fiirso fircoon baa cabanaya wuxuu doonaya inuu maago wax ka sheego nabiyullaahi muusa calayhi salaam qol fiirso wuxuu leeyahay faqaala lahu fircawn innii la adunnuka yaa muusa masxuura fircoon baa wuxuu yidhi ilahay baa inagu le subxaana wa tacaala fircoon baa wuxuu yidhi muusow waxaa tahay nin sixran adeeg wuxuu qaban kari waaye uu awoodi kari waaye inuu qanciyo doodii nabiyullaahi muuse ou la yimi ee ahayd ilaah keliya in la caabudo ilaahaasi uu yahay ilaaha aadamaha iyo haddii ilaahay badankeeda leeyahay wax kasta oo kownka ka jira abuuray in ilaaha loo noqdo la caabudo doodaas isaguna aanu ilaahayna hadduu fircoon yahay doodaas ayuu wax allaaliya wuxuu kaga hor yimaado waaye wuxuu ku celiyo waaye wuxuu kaga jawaabo waaye dabeetana muxuu sameeyey gaftinkii aan sheeganay inuu istaago oo ah qofka uu qancin kari waaye inuu wax ku shaambadayo oo caayo iska dhaaf taas waxaa cajiiba xataa qur-aanku inuu inoo sheegayo wanaaggii ay samaynayeen inta wanaagsanayd in wanaaggooda lagu maago waxaanu haynaa iyadoo nabiyullaahi luut la maagayo iyo inta raacdoo leeyahay waa dad yatataharuun dad daahira iska dhigayaan dad wanaagsan bay iska dhigayaan qol fiirsaad marka ha la yaabin haddii dhaqan wanaagsan aad leeda lagugu maago ha la yaabin haddii wax aanad lahaynba lagugu maago sifa aanad lahaynba waxa weeyaan lagugu maago waa dhaqan jira oo ah dadka lagaga roonaaday caddaymaha lagaga roonaaday aqoonta lagaga roonaaday aragtiyuhu ay isticmaalaan marka la yaab ma leh wanaagsane waa ilaahay salaam